qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay wax walba miyuu kaa fiican yihi hadduu aqoonta maadiga kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale miyuu moodhalka yahay bini aadamku uu ku daydo waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identityga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa yani waxay isweydiinta le war maxaad u nooshay inaad isweydiiso wakhti yar baad horta haysataa 60 sano 70 sano meelaha kan laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay waa wax kontaneeyo sana abaad haysataa this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso wakhtigaa yar aad joogtaana inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad og tahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo wakhtigii yar ayaad joogtay wixii aad qabatayna in lagugu xisaabin doono yaa model ku ah markaa yaa tusaale ku ah ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah ilaahay subxaana wa tacaala intuu ambiyada ka soo warramay buu wuxuu leeyahay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih kuwaasi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa kuwii alla hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku daya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alle dad abuuray waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhammi uu ku dayanayay inuu noqdo waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay qofkaan ilaahay garanaynin waa wax ma garato أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى بالله عليكم محمد ويدينيا هدي إن أنت إسقاوين كفاني سادو محد مرو كفاني كري ويد يعني شيء معقول طي هدو كان قال لما كفاني يا إلهي من رميسني إلهي من رميسني سادو كفاني كري ويدا أهل النار بانا هيادوك كفاني يا أهل الجنة هي سادو كفاني كري ويد geedin naar ku sii guuraya inay daba guurtaa miyay fiicantahay adoo janno arkaya dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiicantahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka salaada ku tuko waxaad sileedahay talo xagaad ku tukataa markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaha musqusha agteeda aan ku tukanno jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa sababtu waa maxay waxaan baad la khajilaysaa kula yeeliita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay safkii sax ahaa inaad taagantay iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person dhaqan ahaan aqoon ahaan waxa la baranayo wax kastaba inaad adigu tahay the right person idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin aan soran xijaabka waxa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysan inaad jiqis ka soo siiso iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo dhanna surwaal ka yara ah dhanna funaanad yar ka ah meelahana aad masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin sidii ugu weeye u qaado aragna you are the superior adaa ugu sarreeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay idinka aad tusaalihii la rabay in lagu dayday idinku cid idinka liidata ha ku dayanina ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala
laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyay ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida model u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee modelka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama combyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka culture-ka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adiga macallin inaad u noqoto lagaaga baahayo waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaan lagaaga baahaya inaad dunida macallin ha noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini'aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu ama ha xumaado ama ha fiicnaado waa in cidi uun danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhoweyd 11keedii anigoo toronto jooga n t v shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la waraysanayaa ninka la waraysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta AIDS-ka maalinta waxa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyey wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1 milyan gaadhsiiyo si uu kaysku u noqon karo kays isturtiingahoodii yacni kongareska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasayey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaaloo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankaan xisaabiyey waa $13 bilyan baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeya buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba markaa marketkaasaa rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketkaa u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macno kama leh inagunbaa wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nebi muxamed imise carruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebellada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa
dabeetana area la yidhaahdaa 2 birood dhex geliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini'aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxaa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeye 2 birood la dhexeeyo 40 milyan oo dhaale ku qaataa $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira western Europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sannadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyay qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxa ka bax caalamka la adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini'aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad uu loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameyn jiray ma jirin nin yiraahdo inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini'aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamadan yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-da hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub baa la ciyaaraya dadkii oo dhan kooba bay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adneys weydiinin subaxii markay iskuulka isugu timaadaan waxa tirahdaan xalaya badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo Ilaahay rumeeyay subxaanahu wa ta'ala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yar aad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagu talagalay inaad ka faa'iideysato waxaad ogtahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtiga yar aad joogtay wixii aad qabatay in lagu xisaabin doono yaa model ku ah markaa yaa tusaale ku ah Ilaahay baa quraanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah
إلهي سبحانه وتعالى أنتو أنبياء كسوا والرميب وحليه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا سبا إلهي سبحانه وتعالى وكوي ألا هنونيي فبهداه مقتده هنون كودا كودا يبا إلهي سبحانه وتعالى هنون كودا يعني سلوك كودا رقم كودا qaabkay u fakarayeen qaabkay u cibaadaysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakarayeen iyaga kaga dayda baa ilaahay yiri ilaahay qur'aan wuu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yiraahdo akhristo faahfaahsan laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kasto uu soo dejiyay rasuul baa la soo raaciyay rasuushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koow waxaan la faray inuu yahay wax la samayn karo fi maqduuri albashar bini aadamka awoodiisa wax ka mid ah inuu yahay inuu dariiqa saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay ciddii tilmaami lahay walidalik waxaynu ku celcelinayna leenahay waa inaynu si fiican u daraasayna u garanaa ciddaynu ku dayan lahayn ciddaynu ku dayanayna waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alle dad abuuray waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhammi uu ku dayanayay inuu noqdo waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay qofkaan ilaahay garanaynin waa wax ma garato qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa aqoonta waxay ka warramayso iyo waxay tarto socaynkaa maaha inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa haddii iminka laydin yidhaahdo computer science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30 kun 40 kun oo karawne bishii wada computer science baynu gelaynaa laakiin hadduu marketku isbedelo la yidhaaho saxaafadda ka qaalisan saxaafaddaad u guuraysaa saxaafadnimadu iyo kombiyuutarnimadu ma ahayn fiicnaanta laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysaa iyada ugu qaalisan oo ay jannay goysaa yacni life span-kaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa wakhti aad dhabarka aabbaha iyo hooyadaa ku jirtay wakhti aad caloosha hooyadaa ku jirtay wakhti aad dunida korkeeda sarrayd wakhti aad xabaal ku jirtay kadibna waad ka soo baxaysaa waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa inta ugu qaalisan bay ka tartaa hadday tahay noloshan aad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyadaa tilmaamta hadday taa aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato quraanjada cilmi ku saabsan iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan waxa kaloo la mid ah cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka istiraahdo ku tuko waxaad sileedahay talo xagaad ku tukataa markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaaha musqusha agteeda aan ku tukanno jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa sababtu waa maxay waxaan baad la khajilaysaa kula yayliita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay safkii sax ahaa inaad taagantay iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto
inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person dhaqan ahaan aqoon ahaan waxa la baranayo wax kastaba inaad adigu tahay the right person idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin aan soran xijaabka waxa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysan inaad jiqis ka soo siiso iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo dhanna surwaal ka yara ah dhanna fanaanad yar ka ah meelahana aad masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin sidii ugu weeye u qaado aragna you are the superior adaa ugu sarreeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay the right way baa taagantay مثال بسيط عن كسينية صحابة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الدنيا دي فرتين لسبونة دانيو فيانا إيو بلغراد إيو موسكا إيو دول كانوا دان دعلا دي وضي مادين مسلمين تو إلا يلغا قادا يا تشاينا يا إندونيسيا يا وحلا ميدا دولال بدانا دولال كاكم ميدا كومي فرانين دقال دولال بدانا كم ميدا وحي كفرتين نقن إيا أخلاق إيا الضدنمو iyo macaamil bay kula furteen waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakarayeen iyo waxay basharka u keeneen waxay ku furteen oo kaaga filan Rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii Rustam oo janankii hogaaminayay ciidamadii Persia Iran ciidamadeedii ayaa waxa la isku galay Qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano وإنتان مدائن عراق باي مكتر سنتا رجينيا لا فرنين waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadlee Sa'd ibn Waqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir Ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpetka wada taqaanay Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo Sooma taqaanin ee ay soo dul socdaan red carpetiskaas meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan oo soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idiin ma imanay idinka ay yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita haddaan rabtaan inaan u tago waa u tagay haddii kalena waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanima haddad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqma saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama damayso wax ma khiyaameeya haddana wuxuu hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita haddii loo baahan yahay waan u tagayaa boqorka waxa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa faraskiisii yaraa buu soo duleeriyey baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay yidhahdaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su'aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan magaaja wadankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wada dee waxbaa la idin siinayaa iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa
ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu sama warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigayaa adigana waxa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay waa wax faal xun waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kumaad tahay waa inaad garataa adigu muslim baad tahay kuwa kalena waa gaalo taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan taa macnaheedu waxa weeyaan adaa marada aad sidataa maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato adaa moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo iyaguna way qaawan yihiin waa meel laga naxaabay joogaan waa hilib wadhan meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hoggaaminaysay horkacaysay ee dariiqa sawaabka rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyda yacni say macquul u tahy hadduu kani gaalnimo ku faanaya ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanaya ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda ku soo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida moodhal u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee moodhalka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaadda bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama combyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka cultureka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adigaa macallin inaad u noqoto lagaaga baahaya waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaa lagaaga baahaya inaad dunida macallin ka noqotid
laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara waxaan ku soo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka bini'aadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay nebi daawuud nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamiso dowlada xukuntay hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka waramayaa rusul hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaane xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo ummad xuquuqdeeda loo raadiyo rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay nebi muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo an irsil maciya bani israa'iil haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo si uu noolan laha ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday rusul baa ilaahay tilmaamaya nebi yuunus oo xuutadi liqday oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray haddaad rabto cid dagaalyahanoo ummaddoodii u dagaalantay oo xoraysay rusul baa ilaahay ka warramaya nebi daawuud oo jaaluut la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyey niman gaalo ahaa yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ah ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyahy ku dayasho fiican ciddii alle subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala waxaan ku soo koobaya oo ilaahay inooga digaya walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaq ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina cid idinka liidata ha ku dayanina ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo waxbixin leh oo ballan oofinaya oo hoomweegiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydabaa muhiima markaasaa tusaalii dhabtaa noqonaysa laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato kalaaskana aad jirtid macallinkana been u sheegtid saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid kana aad dulmidid markaa tusaale noqon maysid tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay hadday waxbarashatay hadday dhaqantay hadday ballan tahay hadday hadaltay iyo waa run la sheegayo qof street forward markaad noqoto qof toos u socda modelka la rabay islaamigiina waa kaa walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digayaa inaynan odhanin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun inaynan bad example ka noqonin diinta waxaan aad uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno oo nidhaahna ha soo gelina waayo diintu hadday innaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo gala say suurtagal u tahy waa in dadka diinta aynuugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeennu inuu dadka dacwo gaadhsiinayo waa laga yaabaa afafku inaynuguba adag yihin inaynan si fiican ba isu fahmin laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaagaa yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay
meeshaad ka shaqayso, meeshaad wax ka baranayso, meesha aad joogto, cidda aad la saaxiibka tahay, markaad si quman ula dhaqanto, qumanaantaadan baa dacwad ah sheegaysa warkaale ilaahay rumeeya. ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina, tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina, ee waxaa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga. waxaa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyey. norwijigu saacinkaa maaha, waayo hoy baa laydin siiyey, waxa cuntaanna waa laydin siiyey, waxbarashana waa laydin ogolaaday, intay doontaba ha noqotee. idan waa inaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siinno. diin baynu sidnay, islaamnimaynu sidnay, dhaqan fiican baynu sidnay, wixii wanaagsanaaye aynu sidnay inana waa inaynu siinaa. oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah. waa inaynu dadka u mahad celinaa, laakiin mahadcelku maaha inaynu inana barro sida sistamkooda loo buriyo, sida loo xado, sida been loo sheego, sida wax laysu weydaariyo. kaa maaha. waa inaynu ugundamkooda hanuunin karnaa. iyagu maanta ugundamkoodii way u taagla'yiin, sigaar iyo khamri iyo suuq iyo baliya baas iyo. waa in iskuulka 5 hablood ama 5 wiil oo muslima ay degan yihiin. waa inay iskuulkan dhaqankiisa bedelaan. waa inuu iskuulkani noqdaa model la yidhaahdo markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka ajanabiga muslimiinta iskuullada lagu badiyo loo qaybiyo waa inay noqotaa. waayo waa model iskuulka wax taraya. laakiin haddaad noqotaan intaa meel ku ururtaan iskuulka joogtaan inuu aqoonta ka hooseeyo iskuullada kale, oo dhaqanka ka sii liito, oo waxbarashada ka sii liito, oo damiinnimada ka sii liito, meel kasta u sii fool xumaataan, markaa islaamka aad ceebaynaysaa weeye. waxaa la rabay meeshaa 5 ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaad noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kanoo kale in la helo. iskuullada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahannay 10 arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo, u toosi karo. waxaynu markaa isugu nimi waxa weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno, kudayashadaas inaynu muujin karno, in maanta laga bilaabo aad garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa. inventionkaad dadka u keeni lahaydeen idinkaa laydinka rabaa. markaa maanta laga bilaabo idinkaa aad dadku ku dayan lahaa. markaa idinkaa laydin rabaa inaad noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara, oo aadoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa. sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso, khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo. markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen. markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadatan, dariiqa saxa u tilmaami lahaa. markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale. yani inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay. amaa maanta in badan oo muslimiinta ka midi qaabkay uga dhaqmaan halka kani waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyey oo dhan, iyo diinta ay xambaarsanaayeen iyo kaljarkoodii iyo dhaqankoodii iyo aragtidoodiiba very bad examples bay ka yihiin. waxaan ku soo koobayaa markaa dad ba idinkaa u fiican ha jabina uun. yani dad ba idinkaa u fiican intaad muslim tihiin, laakiin cuqdadana infan dareera baan ahay iyo kan baan ahay iyo minority baan ahay iyo waa lay xaqiraya waa la yasayada ka baxa. infan dareeraa tahay, muslima baa tahay, hogaamiye baa tahay, waxyigii samada sida baa tahay, qofkii la rabay dadku inuu ku dayda baa tahay. daadis waxaa la rabaa inay adiga kaa dhaadhacdo. haddaanay de adigaba kaa dhaadhacsanayn dadkama dhaadhicin kartid, laakiin adigaan rabaa inay kaa dhaadhacdo inaad tahay infan dareere muslima oo kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay, kii siday baa tahay. then you should be a good example. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.